waxaan leeyahay gudoomiye waxaad ku soo dhawaataa marti sharafka ama qada sharafka maanta aan u sameeynay xisbiga wadani ee u sameysay bahaweynta beelaha habar cafaan ay u sameysay mas'uuliyiinteeda xisbiga wadani ku jira ay u sameeyeen waxa leeyahay ku soo dhawow martida kalena saas oo kale iyadana sharaf bay noo tahay inay nagala soo qayb galaan qada sharafkaasi aadna waan u mahad celinaynaa Sooriyana waa tii la isku lahaa oo Sooriyo waa tii la isku lahaa marka la soo booqdo la isku yimaado maanta Sooriyada iyo xisbiga u fidinaynaa waxa salaamaya u mahadnaqaya haddana madaxweynaha musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani iyo ku xigeenkiisa wufuudda xubnaha waaweyn ee la socda ee rag iyo dumarba leh ee na soo ajiibay qada sharafta aanu ugu sameynay Hotel Race ayaan u mahadnaqayaa waxaanu galaynaa annaga oo ah xubnihii ka tirsanaa awalba xisbigan wadani oo aan ahayn kuwa maanta soo galay habar cafaan maaha tu maanta xisbiga soo galaysa awalba way ahayd sidii bayna u tahay nin hadduu ka tago ku kala imanaya waxa weeye diyaad baan u hambalyeynaa waxaan ku salaameynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta aniga uga gudbaya aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa qada sharaftani aad samayseen sida fiican loo soo agaasimay qiimaha iyo qaayaha badan leh sida kale xisbiga dee la iskuma haystee cid ka tagtay ma jireen annagu sidii aan u joognay baan u joognaa sidii baan u joognaa wax ku biira maayna wax ka dhacana loo yeeli maayo sida inoogu muuqato hadduu niyad turunturoodana dee midun baa kor u joogo kolley bini'aadanka saxbi wasallim magacaygu waa Bashiir Sheekh Ibraahim Bakaal waxaan ahay gudoomiyaha xarunta Scandinavian-ka Sweden waxaan ahay ninka soo jeeda beesha habar cafaan oo qurbaha ka yimday run ahaantii horta waxaan u sheegayaa beesha habar cafaan aan ka tirsanahay in xisbigii sidii uga tirsan tahay haddaan qurbanahay iyo haddaan gudanahayba waxaan mas'uuliyiinta xisbiga ee gudaha musharaxa madaxweynaha iyo musharaxa madaxweyne ku xigeenka iyo mas'uuliyiinta kale xisbiga ka codsanaynaa in xilalkii xisbiga ee habar cafaan heer gobol iyo heer qaranba ay buuxin doonaan ciidii ka tagtay habar cafaanna diyaar u tahay